xisbiyada qaran ayaa waxaa shir ay ku yeesheen Turkiga ay ku heshiiyeen inay sameystaan xisbi ay ku mideysan yihiin oo ay uga qayb galaan doorashada 2020-2021. madasha xisbiyada qaran waxaa shir muddo 5 cisho ku dhawaad uga socday dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul ay markaasi isku raaceen in ay markaasi ay sameystaan xisbi siyaasadeed oo ay ku mideysan yihiin isla markaana ay uga qayb galaan doorashada soo socota ee 2020-2021. ku dhawaad 13 qodob oo uu ka koobnaa warmurtiyeedka ay kasoo saareen shirkooda ayaa waxa uu qornaa sidan: shir u socday waa shir ay iskugu yimaadeen madasha xisbiyada qaran muddadii u dhaxaysa 19 Febraayo ilaa iyo 4 bisha Maarj ee 2020 ayaa waxaa kasoo qayb galay dhammaan xisbiyada xubnaha ka ah madasha xisbiyada qaran muddadii 5 cisho ahayd ee shirku uu ka socday magaalada Istanbul, waxaana ahmiyadda ugu weyn markaasi la siiyaba leeyahay sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha siyaasadeed iyo sidoo kale kuwa amni ee dalka ka jira oo maraya heerkii ugu xumaa oo aad u adkaatay, taasi oo horseedi karta baa leeyahay in dowladnimadii lasoo tabcayay ay weeqmato haddii aan la helin xal degdeg ah oo markaasi wax looga qabanayo marxaladahan. wadatashi iyo sidoo kale gorfayn dheer kadib ayay madashu waxa ay sheegeen inay soo saareen qodobadan. 1. madashu iyada oo markaasi ka ambaqaadaysa marxaladda adag ee dalku uu marayo iyo muhiimadda ay leedahay midnimada xisbiyadu ay markaasi ka kooban yihiin, madashu waxa ay markaasi isku raaceen baa leeyahay in ay u midoobaan ama ku midoobaan hal xisbi oo siyaasadeed. 2. si loo gaaro midnimada iyo sidoo kale arrimaha kor ku xusan iyo farsamo ahaan qaabka uu noqonayo xisbiga cusub ee markaasi ay yeelanayaan ama ku midoobayaan madashu, waxaa markaasi la magacaabay guddiyo farsamo oo 45 cisho gudahood kusoo dhisa arrimaha la xiriira ama uga soo shaqeeya arrimaha la xiriira farsamooyinka xisbigani, iyada oo laga ambaqaadayo dastuurka kumeel gaarka ah ee dalka iyo sidoo kale sharciga doorashooyinkaba. waa in doorashadu ay ku dhacdaba leeyahay waqtiga loo asteeyay laguna galaba leeyahay hanaan axsaab siyaasadeed oo markaasi loo dhan yahay si waafaqsan dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. waa in markaasi si shuruud la'aan ay u wada hadlaan dowladda federaalka ee Soomaaliya, saamilayda siyaasadeed iyo xubnaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. qodobada oo aad u dheera ayaa waxaa markaasi looga hadlay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay geysay deegaano ka tirsan gobolka Gado iyo sidoo kale magaalada Dhuusamareeb oo ay sheegeen in ciidamada qaranka ay tahay in aan loo adeegsanin arrimaha la xiriira sidii markaasi siyaasad iyo inay ku milmaan arrimaha siyaasadda ee dalka. ugu dambeyntiina waxa ay ku baaqeen in shacabka guud ahaanba Soomaaliya ay iskugu yimaadaan shirar wadatashi ah oo looga tashanayo aayahooda. shirkan ayaa muddooyinkii dambe waxaa hogaamiyaasha madasha xisbiyada qaran uga socday magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, iyadoo ugu dambeyntiina maanta laga soo saaray warmurtiyeedkan. faahfaahinno dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal ciidamada dowladda iyo al-shabaab ku dhex maray duleedka magaalada Beledweyne. warar dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo ciidamada dowladda iyo al-shabaab saakay ku dhex maray deegaan ku yaala duleedka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladda federaalka ay weerar ku qaadeen saldhig al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka Bitaale ee duleedka magaalada Beledweyne, waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. dadka deegaanka oo la hadlay radio Dalsan ayaa waxay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaas culus oo isku adeegsanayeen dhinacyada ku dagaalamay deegaanka Bitaale ee gobolka Hiiraan, iyadoo saraakiisha dowladda ay ka hadleen dagaalkaasi. saraakiil ka tirsan ciidamada militariga oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay inay weerar qorsheysan ku qaadeen deegaanka isla markaana ay dileen 8 xubnood oo ka tirsan xarakada al-shabaab, hubna ay ka furtay. waa sida hadalka u dhigay saraakiisha ka tirsan ciidamada militariga oo la hadlay warbaahinta dowladda. dhinaca kalena deegaanka Ceel Cali ee isla gobolka Hiiraan aroornimadii hore ee saakayto waxaa la sheegay in uu dagaal xoogan uu ku dhex maray
kooxda macawiisle iyo sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab. dagaalkan ayaa waxa uu yimid kadib markii kooxda macawiisle ee weerar gaadmo ah ay ku qaadeen deegaanka ceel cali ee gobolka hiiraan oo saldhig militari ay ku lahaayeen al-shabaab. dagaalka waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho dhaawac soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay. kooxda macawiisle ayaa la sheegay in 3 ka tirsan dagaalamayaashooda uu soo gaaray dhaawac, halka mid ka mid a dagaalamayaashii horjoogaha u ah al-shabaabna lagu dilay deegaankaas sida ay kooxda macawiisle saraakiil u hadashay ay sheegeen. daahir amiin jeesow oo ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya kana soo jeeda gobolka Hiiraan oo deegaan doorashadiisu ay tahay ayaa sheegay in dagaalka ka dhacay maanta deegaanka ceel cali ee gobolka Hiiraan uu daba socdo dhagaxa dhowaan laga helay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan oo uu sheegay in al-shabaab ay u adeegsanayaan ajaanib laga keenay dibadda oo markaasi iyagu dhagaxaas baaritaana ku wada, hase yeeshee dadka deegaanku ay ka bidiidan yihiin arrintan dagaaladana ay arrimahaas ay daba socdaan sida uu hadalka u dhigay. 4 qof in ay ka dhimatay ciidamadii shabaabka ee dagaalamayay oo ku jiro sargaal aad iyo aad u dhibi jiray oo dagaalyahan ahaa oo xaglaxaglow la yiraahdo, iyo 3 kale oo askartiisa ah ayaa ku dhimatay. waxaa kaloo lii sheegay nin nabadoon ah, dadka ay leeyihiin nabadoonkii u saxiixay waaye dhagaxa qolyaha nabadiidka ay leeyihiin in asagana dhaawac u ahaa, dhimasho geeri ma ogin, laakiin waxaan caddaynayaa inuu ahaa nabadoonnada deegaanka ee la shaqeeya ee shaqaynta la leh ee shabaab. markay haddii la shaqayn la laheen ee dhaawac uu gaaray waxaa la keeni lahay beledka dhaawacooda, sida maleeshiyaadkii macaawisleyda soo dhaawacmay waxaa la keenay beledka. xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya ayuu kaasi ahaa. dagaalka saaka ka dhacay deegaanka ceel cali ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa markaasi la sheegay in weli ay markaasi dhinacyadu ay isku horfadhiyaan. dhinaca kalena waxaa markaasi la sheegay in saraakiil horjoogayaal u ahaa al-shabaab halkaasi lagu dilay, inkasta oo markaasi aysan jirin ilaa iyo hadda cid si faahfaahsan uga hadashay khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka al-shabaab iyo kooxda macawiisle ku dhexmaray deegaanka ceel cali ee gobolkaas. maamulka Hirshabeelle ayaa war ka soo saaray arrimaha la xiriira wacyigelinta dastuurka ee ka socda deegaanadeeda. Cabdisalaan Juule Shaakir ayaa warkaasi noo faahfaahinaya. wasiiru dowlaha arrimaha dastuurka ee maamul goboleedka Hirshabeelle Mudane Saadiq Mukhtaar Cabdulle ayaa sheegay inuu meel wanaagsan u marayo kulamadii wacyigelinta arrimaha dastuurka oo maalmihii u dambeeyay ka socday magaalada Jowhar. wasiir Saadiq Mukhtaar oo la hadlayay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in 3 maalmood ee lasoo dhaafay ee kulamo la qaateen qeybaha kala duwan ee bulshada si ay macluumaad dheeri ah uga bixiyaan barashada dastuurka iyo sidii loo qabyatiri lahaa. wasiiru dowlaha waxa uu sheegay inay bulshadu ay su'aalo furan ka weydiinayeen dastuurka, maqaamka caasimadda, qoondada haweenka, qaab dhismeedka dowladda, nidaamka miisaaniyadda, amniga, cadaaladda iyo garsoorka. mudane Saadiq ayaa sheegay inay shalay soo gaareen Jowhar xubno ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, iyagoona hoggaanka Hirshabeelle la wadaagi doono qeybaha siyaasadda ee dastuurka iyo sidii loo waafajin lahaa aragtida bulshada Hirshabeelle. waxaa maalmihii u dambeeyay dowlad goboleedyada dalka gaarayay wafuud ka socota wasaaradda dastuurka iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka si ay la tashiyo ula sameeyaan hoggaanka iyo bulshada maamulada dalka. taliyaha ciidanka cirka ee Soomaaliya ayaa waxaa kulan uu la qaatay dhigiisa dalka Pakistan oo uu kala hadlay arrimaha la xiriira sidii loo tayin lahaa ciidamada cirka ee Soomaaliya. taliyaha ciidanka cirka ee Soomaaliya Sareeye Guuto Maxamuud Sheekh Cali Deble Baylod ayaa waxaa markaasi uu sheegay in ay dowladda Pakistan ay caawin doonto tayeynta iyo sidoo kale arrimaha la xiriira ciidanka cirka agabyada ay u baahan yihiin. Genaraal Maxamuud Sheekh Cali ayaa waxa uu markaasi booqasho uu ku joogaa magaalada Islamabad ee caasimadda dalka Pakistan, waxaana kulan uu la qaatay dhigiisa dalka Pakistan oo markaasi waxyaabaha ay kaga wada hadleen ay ka mid ahayd sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa dib u habeynta ciidanka cirka ee Soomaaliya. taliyaha ciidanka cirka ee Soomaaliya ayaa waxa uu ammaanay
taariikhda mugga leh ay ciidanka Bakistan, waxaana uu sidoo kale u bogaadiyey tallaabooyinka ay markaasi ku gudanayaan waajibaadkooda ku aadan xukuumadda Islaamabad iyo garab istaagooda sanadihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. waxa uu sheegay taliyaha ciidanka cirka ee Soomaaliya xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Bakistan, isaga oo sheegay in ay markaasi xukuumadda Islaamabad ay gacan ay ka geysan doonto taageerada iyo sidoo kale tababarada ciidanka cirka ee Soomaaliya ee haatan la yigleelayo. labada mas-uul ayaa waxa ay ka wada hadleen qaabka iyo sidoo kale dariiqa loo mari doono sii xoojinta iskaashiyada kala duwan ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Bakistan, gaar ahaana tayeynta ciidanka cirka ee Soomaaliya. waxa daawadayaal wali waxaad dhageysaneysaan waa warka duhur ee radio Dalsan. iminkan waxaynu aadeynaa dhankaasi akhbaaraadka dibadda. Sacuudiga oo joojisay in la booqdo xaramka islamarkaana shacabkeeda ka mamnuucday. shacabka Sacuudiga ayaa laga mamnuucay inay kusoo cumreystaan xaramka cabsida laga qabo faafidda cudurka coronavirus awgiisa, sida ay sheegtay dowladda boqortooyada Sacuudiga. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee lagu daabacay wakaalada wararka ee Sacuudiga ayaa lagu sheegay in go-aanka muwaadiniinta dalkaas looga mamnuucay cumrada uu yahay mid ku meel gaar ah. dowladda Sacuudiga waxay sidoo kale mamnuucday in booqasho lagu tago masjidka Nebiga ee ku yaala magaalada Madiina. dhawaan ayay ahayd markii Sacuudiga uu muslimiinta dibadda ka imaanaya ka mamnuucay cumrada si looga hortago caabuqa coronavirus. isniintii ayay ahayd markii Sacuudiga uu shaaca ka qaaday qofkii ugu horeeyay ee ku dhaca cudurka coronavirus oo lagu arkay dalkaasi. qofkaas ayaa ah muwaadin ka soo laabtay dhinaca Iiraan. go-aanka lama filaanka ee kasoo baxay boqortooyada Sacuudiga ayaa wuxuu walaac ku abuuray malaayiin muslimiin oo ku rajo weynaa inay soo xajiyaan sanadkan. malaayiin muslimiin ayaa Sacuudiga gaara bisha Ramadaan si ay ugu soo cumreystaan goobaha